horta ma santahay waa run dad fara badan oo Soomaalida xataa waxa laga dhaadhiciyay way jiraan laakiin waa aniga kale oo Soomaalida inay wax akhriyaan baa fiican haday dastuurada akhrin lahaayeen iyo xeerarka iyo wax yaalo dhan waxa laga yaabaa inay aysan wax badan qaateen horta waxa ayaan daraa dawladda federaalka marna Jubbaland ma aysan rabin doorasho inay ka dhacdo haddii aysan sida iyada rabta u dhacayn markii ugu horeysay waxay aad ay oran jireen doorasho ma sameyn karaan ma dhacaysaba ma ogolaanayo ninkan meesha jooga madaxweynaha markaa ka ahaa madaxweyne Axmed ma ogolaanayo doorasho ma rabo ugu dambeystii markay arkeen doorashada inaan qabanayn waxay go'aan ku gaareen doorashadaas inay dhacdo by any means haddii ay raggii odayaasha ahaa inta faraha badan cilaaqaadka aadka u weyn dawladda la lahaa oo loo arkayay inay dawladdu wado waxay diideen wixii saaxiibada ahaa say u soo socdeen campaign-kii way sameeyeen cid walba campaign gareyn jirtay markii ay baashi soo dhawaatay registration-kii la bilaabay waxa dawladdii waxay aragtay meeshii inay doorasho madaxweyne ka dhacayso saa darteed waxaa la hor istaagay inay raggii odayaasha ahaa ay musharaxiinta ahaa inay registration soo barayaan oo ay imaadaan ay guddiga u imaadaan oo deedna ay qaataan shahaadooyinkii way diideenba sidaba waan la fadhiisanay nin bay soo direen odaya oo madaxu ahaa yeena soo dirin be kulli ayagu soo diray asagu maaragtay laakiin aniga asaga muddo dheer oo 2 saac ka badan aan wada fadhinay ugu dambeystii wuxuu yiri bal odayaashii baan maanta saaxiibada yahay baan u tagayaa waan u soo bandhigayaa hawsha inay registration-ka ay galaan ay sameeyaan ay suubiyaan kadibna uu ila soo hadlo wuxuu yiri dadkii waa diiday marka registration-ka dadku ayaga diiday chance kama namay siinba inay maaragtay imaadaan oo ay registration-ka ay suubiyaan oo shahaadooyinkoodii qaataan sharaxnimada oo deedan doorashada ay galaan maba intaas bal isla soo gaarin in badan oo kamida dabcan way jireen dad is sharaxay oo maxaan ku dhahay ilaa ugu dambeystii doorashada galay way jiraan laakiin qaybtii ay dawladdu taageeraysay federaalkii raggii odayaasha dawladdu federaalkii taageeraysay doorashadaas waxa way diideen mayna ogoleen sideedaba mayna ogoleen marka taas horta saas ahayd oo dawladda hor istaagtay si toos ah inay dadkaas doorasho ay galaan xaqiiqo way taasi midda labaad xeerarka aan anaga soo saaraynay iyo shuruudaha aan soo saaraynay horta annaka waxaan farayay xeerkan ku dhaqmaynay nafsu ayaan farayay oo midalan de maamulka doorashada iyo madaxweynaha iyo ilaa ka dawladda hoose qodobka 14aad ee xeerkaas ayaa sheegaya qodobkiisa J wuxuu leeyahay ama ja wuxuu leeyahay maamulka doorashooyinka madaxweynaha baarlamaanka iyo dawladaha hoose awoodaha waxay ka mid tahay guddiga waxyaabaha ay qabanayaan waxa kale oo guddiga awoodihiisa ka mid ah soo saaridda xeerar habraacyo iyo qoraalada hagaya habsami u socodka doorashooyinka marka taasna waxa way awoodaha guddiga ay ahaayeen marka haba yaraatee doorashadaas tallaabo aan sharci ahayn oo aan ka qaadnay ma u maleynaya cid sheegi karta inay jirto wax annaga awoodahana kamida ka baxsan shuruucda ka baxsan oo meeshaas ku qoran ma jirto waana loo wada sinaa actually laakiin chance-kaas lama siin tusaale ahaan nin kamida dadkii inay tartabaan rabeen ayaa wuxuu igala soo hadlay Addis Ababa oo markii dambana runtii Muqdisho tagay oo aad u caytami jiray dad badan oo saaxiibkaya wuxuu igala soo hadlay Addis Ababa wuxuu yiri waxaan rabaa inaan doorashadaas ka qayb galo waxaan rabaa in waqti aan helo ninkaas annagoo ilaalinayna ayaan waxaan ku darnay xilligii muddadii waxaan ku darnay 4 beri waan la hadlay waxaan ku yiri maxaa kugu filan wuxuu yiri 2 beri oo filanta oo ku imaan kara 4 beri baan ku darnay wallahi waxaan ku yiri 4 beri baan ku darnay imow waayahay buu yiri 4tii beri maalintii ugu dambeysay markay tahay waa diiwaangelintii oo maalintii Jumcaha markay ahayd ayaa wuxuu iga soo hadlay Nairobi wuxuu yiri maanta aniga waxaan 4tii beri maanta ku egtay 4 beri waa lagu daray maanta ina ku egtay saasa okay waa tagay halkan uu yimid haddana xamar buu tagay wuu yimid halkan uu imaaday
habeen buu halkan joogay hotel buu seexday habeenkiiba wuxuu qoray qoraal uu leeyahay meesha waxba kama jiro waa meel lagu kantaysay waa leen aan la ogolayn waa meelaan doorasho laga qayb gelay waa dar inta laga tuuray kadibna subaxdii dambana waa baxay xamar buu tegey muddooyin dhan buu tamay marka waxaan ka wadaa annagu waxaan raacaynay habraacyo iyo shuruuc iyo xeerar iyo dastuur wixii intaa ka baxsan shaqo maanaan ku lahayn su-aashaan ku weydiina waxay tahay guddigiinu keliya doorashada madaxweynaha Jubbaland muuse mas-uulka ahay oo doorashada dowladaha hoose ee Jubbaland ayuu si leeg mas-uulka ah afmadow mooye intii aad hadda guddigiinu jiray meel kale oo dowladda Jubbaland ay doorashada dowladaha hoose ka dhacday ma jirto maxaad uga gaabiseen arrinta iyada maxaas caqabado in hortaagan inaad taa kulisaan horta anagu doorashooyinkan iyo xuduudaha ayaan mas-uul ka nahay arrinta abaabulkeeda iyo go-aanka gaarista doorashada waxaa iska leedahay stateka iska leh annagu farsamaan ka shaqaynaa marka la yidhaahdo waxaan rabnaa xilligaas degme hebel iyo degme hebel inaan ka qabano ayaan annagu diyaar u nahay inaan qabano siaan afmadow uga soo qabanay dabcan afmadow waxaa ka horreysay qorshuhu ahaa in aan beled xawa meesha kasoo samayno maxaan ku dhahaa garbaharey laakiin de garbaharey waxaa mushkilad noqotay waa lala wareegay oo waxaa weye meel aan la tegi karin oo Jubbaland aynan ka shaqayn karin ayay noqotay saa darteed baanu degmadii ku xigtay oo afmadow ahayd ayaanu qaadanay haddeertan hadday la tegi karo maxaan ku dhahaa meesha la yidhaha garbaharey waxay ila tahay anigu dee hadda guddigii ma ihi oo dabcan guddigii waan ka resign garay laakiin guddigu way joogaan haddii ay noqoto maxaan ku dhahaa meel la tegi karo waxaa u qorshaysan inay ka sameeyaan ayaa u qorshaysan ta dambe kadibna beled xaawo kadibna sidaas ay ku socoto degmooyinka oo dhan way bilaabatay actually oo mashruucani dib uu dhacay way bilaabatay afmadow baa ugu horreysay waxaa qorshaysanayd inay maaragtay garbaharey horeyso afmadow beled xaawo kadib ay maaragtay ay sidaa u socoto ilaa ay kismaayo xatal in laga qabto marka way qorshaysan tahay waa qorshe un u baahan waqti u baahan laakiin sida kale qorshe diyaarsan way annaguna farsamaan nahay oo mar alla markii loo baahdo oo meesha in doorasho laga qabto waxaa weeye diyaar bay guddigu yihiin inay ka qabtaan fariintaada gabagabada xamse ahaan aada soo jeedin lahayd oo fasaxan tahay anigu waxaan soo jeedin lahaa dowladda Soomaaliya waa dowlad federaal ah dhowr arrimood baa marka muhiim ah haddii aan rabno inaan shaqayno horu dhaqaaqno ka dowlad ahaan dowladda Soomaaliya waxaan ka hadlayaa sahul Soomaaliya oo waxaa laga maarmaanaa dadka dowladda federaalka ka shaqaynaya inay maankooda ay ku jirto inay dowladdan tahay dowlad federaal ah aniga laftaydu dowladda dhexe waan ka shaqayn jiray laakiin waxaa ii muuqata markaan imid stateka iyo markii aan joogay federaalka aad baan u kala duwanaa aniga laftaydu markaad federaalka joogto stateka dad ka shaqeeyaay inay hawl qaran hayaan xataa aadka uga muuqato hawsha qaranka adaa haya dadka stateyada joogayay ma aha qabaa'il meelo ku ururay ma aha waa dad ka mid ah federaalka dowladda federaalka ka mid ah oo heer oo shaqo qaran haya saa darteed qofka federaalka joogayay waa in uu maankiisa geliyaa maxaan ku dhahaa degmada u dambaysa Soomaaliyeed markuu shaqaynayo waa inuu ku xisaabtamaa waana inuu ogaadaa inay wixii federaal tahay oo asaga shaqada uusan qabanayna dad kale inay qabtaan ay tahay deedna uu meeshooda u baneeyaa tusaale ahaan dastuurkan hadda dhaqaaqila baan anu ka shaqayn jiray waxaa laga yaabaa annaga wasaaradda dastuurka keliya oo weliba 3 hay-adood ay ka shaqeeyaan oo 3da hay-adood mid baarlamaanka ay tahay midna ay tahay guddiga madaxa bannaan midna ay tahay wasaaraddii 3dooduba waxay leeyihiin advisors wax la soo qabta oo la shaqeeya ayay leeyihiin wasaaradda keliya mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inay 18 qof ay ka shaqeeyaan oo documenti yarkaa ka shaqeeyaan markaasaa waxaa weeye wax anagii overlap u noqday oo waxaan anagu ka shaqeyno ayay guddigii kalena maalin damba ka shaqeynayaan markaasay guddigii kalena maalinta labaad kasii daba shaqeynayaan wixii oo dhan overlap ay noqday
while hal qof oo advisor ah uusan ka jeegin Jubbaland aan laga helin oo laga yaabo inaan laga helin South West oo laga yaabo Galmudug aan laga helin oo laga yaabo inaan laga helin Puntland aan laga helin oo dastuurkaas kala shaqeynaya sidaa darteed markaan dastuurka keeno on aadno outreach aadno on meelaha aadno waxaan imaanaynaa dad aan warba ka hayn oo wax mashaqo kala haynba oo iska imanaya markaan imaadno cid meeshan ku wacyigelisa malaha in dastuurka barta malaha cid kala shaqeysa malaha marka anigu waxaan aaminsanahay dastuurka si seriously in looga shaqeeyo sidaa darteed haddaan hadalkayga kusoo noqdo kow waa in aragti federaalnimo dalka in lagu hogaamiyo suu dalku isula socdo oo wax la isla qaato laba dalku waa in mar kasta waa in siyaasadda heshiis laga sayo yani meesha qalbiga ama wadnaha u ah wada socodka Soomaaliyeed iyo dawladnimada Soomaaliyeed waa siyaasadda markii horena siyaasad bay ku kala tagtay haddeertan aad arkaysana siyaasad bay ku soo kala tagtay maalinka dhaweyta xamar si ay u wada socoto waxaa laga maarmaanaya siyaasadda in heshiis lagu yahay qof kasta haddaad aragto oo kule dalkanaan daacad u ahay wadani baan ahay waxbaan qabanayaa haddana aan ogolayn in la wada fariisto oo heshiis siyaasadeed la sameeyo dalkan laga sameeyo qofkaas waxa uu sheegay waa beentii wadani ma aha dal danka ma laha waxaa waaye qaran dumis waa Soomaaliya marka qodobka labaad waxaa waaye waa in la helaa heshiis siyaasadeed waa in la helaa oo qofta heshiis lagu sameeyo waa in la helaa qodobka saddexaad ee muhiimka waxay tahay oo runtii laga maarmaanka waxay tahay war dastuurka yarka aan haysano iyo xeerarka aan haysano aan ixtiraamno haddii heer state la joogo iyo haddii heer federaal la joogo dadka Soomaalida ee mas'uuliyiinta ee siyaasiyiinta waxaa lagu imtixaanay in dastuurka qarka laga istaago oo la jabiyo oo la iska dhaafo dadku heshiis bay galeen waa heshiis bulsho heshiiska bulsho in la ilaaliyo la rabaa si loo ilaaliyo oo haddii meelaha qaarkood waa kaan sheegaynay dastuurkeenu meelaha qaarkood dib u eegis yaa ku socota u baahan yahay haddii meesha wax laga waayo intii la isu imaado heshiis kale laga waayo ilaa heshiis qoran waaye kane heshiis kale oon qornayn xatal ha laga gaaro laakiin waa in la ilaaliyo waxa heshiiska meesha ku qoran waa in la ilaaliyo taasna waa iyadana waa qodob kale oo runtii muhiim ah ana waxay la tahay marka dadka Soomaaliyeed haddii ay federaalka iyagu doorteen haddii ay ixtiraamaan dastuurkooda ay ixtiraamaan wadajirka siyaasadeed iyo midnimada siyaasadeed la ixtiraamo waddankan wuu wada soconaya wuuna dhaqaaqaya haddii intaas waxaa waaye ay maxaan ku dhahaa wax la yeelo ama intaas lagu socon waayo waa la isla meeraysanaya sidii reer waqooyigu dheheen waa ila meerayso sheekadaasa soconaysa maadsanta